بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نعبده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد magacaygu waa musharax shukri maxamed cabdulle waxa uu tartamayaa baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. kursigan waxa ay soo siiyay dhammaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, duubabka beesha mataan cabdulle. aniga deegaan doorashadeedu waa degmada Balcad gobolka Shabeellada Dhexe. haddii kursigeena anigoo liisiiyey oo reerka dhan isoo siiyeen oo lagu soo tawfiiqay oo jawhar la ii keenay ayaa waxa information aan helnay in kursiga la iga tiray oo nin kale lagu qoray ayadoo cadaaladda la ilaalinayo. waxaa la xiriiray madaxweynaha ku-xigeenka Cali Guudlaawe. madaxweynihii uu istoobgareeyay barnaamijkii wiilkii habeenkii laguma dhawaaqin magaciisa. madaxweynaha wuu mahadsan yahay maadaama cabashada reerka ka soo jeeday Hirshabeelle aad u mahadsan yahay. tan kale ayna ka hadla rabo waxa waay kursiga maadaama la siiyay in la igu xoog la isku dayayo haddii cadaalad ay jirto Hirshabeelle baarlamaankiisa labaad in cadaalad lagu soo dhisay la doonayo haddii la qiimeynayo ama la ixtiraamayo magaca haweenka Hirshabeelle haddii la ixtiraamayo qoondada aan ku leeyahay baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle haddii la ixtiraamayo reerka aniga ka dhashtay ee mataan cabdulle ee kursiga isoo siiyay kursigaas aniga iskala dhaaraan ii dhiman. madaxweynaha waxa u sheegaya Cali Guudlaawe maadaama kursigan kor loo hayo 9 kursi kor loo hayo uu kamid yahay kursigan ilaa reerka iskala ee mataan cabdulle ka soo heshiinayaan in kor loo hayo xitaa gabi ahaan 4 sano ee soo socota in kor loo hayo haddii cadaalad jirto kursiga reerka anigoo isoo siiya hal ii dhaaniyo haddii kale 4 sano ee soo socota kursiga meel iska yaalo haddii cadaalad jirto waa baarlamaanka labaad Hirshabeelle cadaalad lagu soo dhisay. anigoo ku hadlaya magaca haweenka ee ka soo jeeda deegaanka Hirshabeelle waxaan ambaareynaya in aan ka waynay baarlamaanka labaad qoondadii aan ku lahaynay kuraasta baarlamaanka 18 kursi ee loo qoondeeyay haweenka ama gabdhaha ka soo jeeda Hirshabeelle in aan lagu darin baarlamaanka koowaad maanta uu heer gabagaba sii marayo baarlamaanka labaad in aysan muuqanin haba yaraatee wax ama in lagu daro haweenka aqoondadii ay ku lahaayeen Hirshabeelle. waxaa meeshaan tusaale cad igaga filan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee golaha shacabka 11 ay la soo xuli doono in haweenka sidaan oo kale loo marin habaabi doono. waxaa baaq cad u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Roble iyo golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo daneeyaasha saaxiibada dawla ah hay'adaha beesha caalamka la jirayaasha ama dadka ilaha gaarka ku hayo iyo qaramada midoobay in ay si degdeg ah ku soo farageliyaan doorashada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. wabillahi tawfiiq.